عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي كسو دواده برنامجكي بندقة تضباطك عيارها وتضباطكي مرة aan idiin soo gudbino toddobaadkan waxaa ku eegi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Barclays Premier League kuwaas oo ahaa kuwa aad u xiiso badan taasoo ka dhigaysay in hal maalin gudaheed la iskaga dhaliyay 25 gool gaaraya si qaas waxaan ku eegi doonaa kooxaha loo garan og yahay top 6ka iyo waxa ay kala kulmeen hagaag aynu ku bilaabnay Chelsea oo wajahday Crystal Palace kalabnimadii Sabtida ayaa waxay ku adlaagtay waxa ciyaartaasi ku soo idlaatay 4 gool iyo waxba oo ay Chelsea ku awood sheegatay Arsenal ayaa 2 gool iyo gool ku adkaatay Manchester City Leeds United ayaa ku heshiiyay barbaro gool iyo gool ah Man United Tottenham ciyaarey Man United koor martay gool ayaa loogu bedelay Nustersin goolal ah taasoo ka dhigaysay in garoonka Old Trafford oo dhinaca ka gubanaya balse waxaa ka daroojin dal noqotay ciyaartii ishii lagu wadaayay u dhaxaysay kooxaha Liverpool vs Aston Villa maxaa ka dhacay kulankaas natiijadii qaybtii hore ciyaarta waxay isku mid noqdeen Manchester United oo min 4 gool iyo gool kambi lagu marsiiyay naadiyada ugu awoodda badan Premier League balse Aston Villa leesma oran karin way gaarsiin kartaa gool gaaraya 4 gool iyo gool balse markii la isku soo laabtay ay Aston Villa ee ka sii dartay loona dhiibay Liverpool 7 gool iyo 2 gool waa ku maasantaa daawashada muuqaalka fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka subscribe saar kambalelkana furo si aad u hesho wararka iyo muuqaalada aan halkaan soo gelino lana wadaag saaxiibada si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale toota waa soo jeediyay Cabdullaahi Abukar Caadle tan iyo kulanti dambe sida ay nabadiino